900 meters. 900 meters. Holy shit. Oh my god. We just set the record, my friends. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هدي عاد جيمك جعشة هدي كلبا وحالا ما معناها أنا مخشى جيم كببجي. هذا هو مخالك أنا ما أنتو حكوا سابسين هاي جيم كببجي قف كسو صاري شركة برنامجي iyo taariikhdii iyo qaabkii ugu soo caanbaxay geemam kala fara badan isagoo ka dambeeyay sidoo kalena uga hormaray haddaba intaanan bilaabin halka like sar asaasaha geemkan waa shakhsi lagu magacaabo Brendan Green wuxuuna ku dhashay Ireland jinsiyadiisuna waa Ireland wuxuuna ku dhashay Blashanon wuxuuna dhashay 1976 yani da ahaan hadda wuxuu jiraa 43 sano meesha uu ku barbaaray waa xiro military loo yaqaano Korak sanado waxbarasho kadib wuxuu dhameeyay kulliyadda artiska shaqooyinkiisa hore wax xiriir ah lama aysan lahayn video gameska ama gameka shaqooyinkiisa hore waxaa ka mid ahaa sawir qaadista yani sawir qaado ayuu ahaan jiray waxayna ahayd markuu kusoo dhawaanay caalamka programmingka 2013 xilligaasna wuxuu joogay Brazil Sao Paulo meel loo yaqaan markii uu sodon jirsaday waxa uu jeclaaday gabar Brazilian ah ugu dambeynna waa uu guursaday wuxuuna u wareegay Brazil si uu ula noolaado xaaskiisa balse waxaa dhacay wax khatarna ugu dambeyn xiriirkoodii guurka ah wuxuu ku soo gabagaboobay furin faahfaahin ku saabsan furinkooda cid og ma jirto ilaa hadda maxaa yeelay Brendan idaacada iyo media uga muusan faaloon jirin noloshiisa khusuusiga ama waxyaabaha u gaarka ah waxaana la sheegay markii furinku uu dhacayay Brendan ma uusan haysan wax lacag ah yani uu jeebarnaa xitaa ma haysan lacag uu ticket ku iibsado si uu ugu laabto wadankiisa wuxuu dhalay gabar yar gabadhaas oo uu aad u jeclaa heer uu badanaa ku soo xusi jiray Twitterkiisa xitaa markuu furay hooyadeed kadib intaas kadib Brendan wuxuu go'aan ku gaaray in uusan guursan mar kale uu diiradda saaro kaliya shaqo ilaa uu akoonkiisa ka gaarsiiyo balaayin dollar wuxuu filinayana dabcan way dhaceen wuxuu noqday milyaneer jeeb marnaantiisa kadib markuu soo laabtay wadankiisa wuxuu go'aan ku gaaray inuu barto programmingka iyo geemamka beeskooda ama saldhigooda gaar ahaan kuwa ay soo saareen dad kale sanado kadib wuxuu u safray Kuuriyada Koonfureed si uu halkaas ugu tago rag ku takhasusay programminta geemamka lana wadaago fikirkiisa kadib markuu la wadaagay fikirkiisa raggii aad bay ula dhaceen halkaas aynu ku shirkoobeen shirkadda Black Hole iyo Brendan Green dadka qaar ayaa aaminsan Brendan Green inuu soo saaray geemka PUBG oo kaliya laakiin waxaa jira geemam badan uu soo saaray waxaana ka mid ah Arma 2 Mad DC iyo Delta Force Black Hawk Down sanadku markuu ahaa 2016 waxaa shaaca laga qaaday PUBG waxaa laga soo gaabiyay Players Unknown Battleground ciyaarista geemkana aad ay u fududahay halka ay 100 ciyaaryahan ka soo wada degayaan diyaarad kuna degayaan meel ka mid ah ama meel kala duwan ee mapka markay degayaanna waxay degayaan ayagoo wada maran ayagoo aan haysan hub iyo waxyaabo kale xitaa kuwa qaar ma haystaan wax dhar ah markay dhulka soo gaaraan ciyaaryahanadu waxay bilaabayaan inay urursadaan hub dhar iyo waxyaabo noocaas ah iyo bom iyo waxyaabo noocaas ah markay urursadaan kadib ay dagaalka galayaan waxyaabaha ciyaarta dhadhanka u yeelaya iyo xamaasadana waxaa ka mid ah zoomka waxa loo yaqaan sida dadka ciyaaraya garan kara zoomka oo si yeelanaya yani ciyaaryahanka bakar ma jiro fagaaraha ay isugu imaanaya ninka ku haro halkaas ciyaaryahan hal qof ayaa ka raaya dabcan ninka raaya reer ku haray soo ma dhihi jiray Soomaali sanadku markuu ahaa 2017 PUBG waxay xareysatay score aan caadi ahayn scorekaas oo ah in ay hal waqti online ahayn ciyaaryahan tiradooda gaaraysa 1,342,857 ciyaaryahan jirin game sameeyay scorekaas waxayna iska reebtay gameka loo yaqaan ee kaliya sameeyay scorekaas ee loo yaqaan Dota 2 wuxuuna noqday gameka ugu iibsiga badan
uguna firfircoonida badan ee barta Steam loo yaqaan. Waqti gaaban gudihii ayay PUBG gaartay guulal aan la suuraysan karin, taasoo aysan gaarin geemam kaloo far badan oo ka dambeeyay ayada. wuxuuna PUBG noqday geemka Brendan Green ka dhigay caan iyo milyaneer isla hal waqti. bilooyin yar gudahood ayuu Brendan awood u yeeshay inuu soo xareeyo $200 milyan lacag gaaraysa, waxayna gaareen dadka ciyaara geemka ilaa iyo hadda 400 milyan oo qof. wuxuuna bil walba gaaraa ama ay gaaraan ciyaaryahanada ciyaara geemkan 227 milyan oo qof, halka 20 milyan ay maalin walba online tahay. waaba hal dowlad. App Store-ka ee iPhone-ka waxaa kala degtay geemkan 240 milyan oo qof, waxaana la iibsaday 50 milyan oo koobi ah ama CD ah, kuwaasoo ay iibsadeen baraha hadda laga helo. ciyaaryahanada ugu badan ee geemkan ciyaara waxay kasoo jeedaan waddanka Shiinaha, kuwaasoo gaaraya 33%. kuwa soo labeeyana waxay kasoo jeedaan Amerika, kuwaasoo gaaraya 11%. dowladda saddexaadna waa India, taasoo gaaraysa 8%. ilaa iyo maanta dalabka geemkan ama waxyaabo lacagaha uu si guud ahaan usoo xareeyay waxay gaarayaan $2 bilyan. waxa yaabka badan ee laga sheego aasaasaha geemkan Brendan Green, taasoo cajabgelinaysa dad badan oo geemkan ku waala. Brendan Green isagoo aasaasay geemkan misana maba ciyaaraba, wuxuu sheegay inuusan jeclayn inuu u fariisto ciyaarista geemkan. Mark Zuckerberg oo kale isagoo iskale Facebook sidoo kalena Instagram iibsaday, misana ma isticmaalo badana. amaba cinwaanku ma laha, hadduu cinwaanku leeyahana ma isticmaalo badana. soo saas ma la qabsiga daran ay la qabsadeen ciyaaryahanada geemkan. Brendan wuxuu sheegay in hanjabaad badan loo soo diray, kuwaasoo ay ugu hanjabayaan dil. yacni ciyaaryahanada geemka ayaa Brendan ugu hanjabaya in ay dili doonaan. sababtana waa sabab ama arrin cajiib ah. waa updateska keliya u sameeyo geemka, waana wax iska caadi ah lagu sameeyo game walba, application walba, website walba. laakiin sababta waxayna ciyaaryahanada badi ku jeclaayeen geemka inuu ahaado sidiisii hore, waxayna ugu hanjabeen inay dili doonaan hadduu ku soo celin sidii hore u ahaa geemka. waxyaabaha kale ee lala yaabo ay ku aadan geemkan PUBG ayaa ah tusaale oo kale shirkadaha waaweyn sida Apple oo kale waxay sanad walba ku bixisaa xayeysiin keliya. waa hadda xayeysiin keliya $1.8 bilyan xayeysiin keliya ay ku bixisaa sanad walba. haddaba ma suuraysan kartaa PUBG oo muddo gaaban horumarkan ku samaysay meeqa ayay ku bixin kartaa xayeysiin? 50 milyan, 80 milyan, 30 milyan ama 100 milyan. dabcan wax xayeysiin ah ma aysan kaga bixin geemkan. keliya waxay sameeyaan Twitter-ka ayay dhigeen, postigaas oo ay ugu sheegayaan ciyaaryahanada ciyaara geemka loo yaqaan Counter Strike in ay soo booqdaan PUBG tijaabiyaan. sidoo kale maxaa yeelay waxay sheegeen in ay Counter Strike iyo PUBG ay isshaabahaan ama isku yara egyihiin qaab ciyaareedka. faafidda geemkan ee dhaqsiyaha badan saameyn weyn ayuu ku yeeshay dadka ku nool caalamka, gaar ahaan carruurta, taasoo ku khasabtay dowladaha qaar in ay geemkan ka mamnuucaanba asal ahaan. dowladahaasna waxaa ka mid ah India, Urdun iyo Ciraaq. intaan ayaan kusoo koobaynana muuqaalkeena maanta. waxaan filayaa inaad ka bogatay macluumaad ku saabsan PUBG. haddaba like, share, comment, subscribe hanaga iloobin. sidoo kale booqo janalka oo muuqaalo badan oo ku cajiib gelin doona ayaa ka buuxa. hadday noqdaan muuqaalo tutorial ah, hadday noqdaan muuqaalo yacni sidaan oo kale ah oo xaqiiqooyin aan kaga hadlayno. haddaba intaan aan kusoo koobaynaa waxaan ku leeyahay sidaas iyo amaan Allah. noloshaada ha ku farxad geliso. Goodbye.